maayarkii magaalada xafiiskiisana lagu qarxiyay oo dhib nagu gaareen aniga dhaawac aad culus ay soo gaareen laakiin at the moment ay waxna gaareen muddo 20 daqiiqo ah baan aan fahansaneen wixii igu dhacay ku dhawaad 20 daqiiqo oo kici karin indhihii waxa ka arki karin maxaa la yiraahdaa adimadeeda qaar aan qaadi karin dhaawac culus isoo gaareen magacaygu waa Zainab Maxamuud Warsame Zainab Xabse gudoomiyaha degmada Warta Nabadda waxaan ugu bilaabatay subax aad u qurux badan oo soo dhaweynay ergeyga gaarka ah qaramada midowga u qaabilsan Soomaaliya abaarihii maxaa ahayd 5 saac ilaa 6 saac iyo bar waxaa ku mashquulsanay soo dhaweyntiisii jawiga dhammaan maamulada degmooyinka iyo maamulka gobolka Banaadir aad buu u heer sareeyay soo dhaweyn qurux badan oo loogu sameeyay meesha anaga dhamaanteena aan wada joogno ka wada qayb qaadanaynay waxaan mar qura wada aadnay anaga gudoomiyaha iyo team aan wada socono meel aan qado ku lahayn qadadii markii aan ka nimaanay ay ka soo qayb galnay shirkii arbacada gobolka Banaadir oo councilka sare iyo maamulka degmooyinka ay yeeshtaan abaara 4 iyo qadar daqiiqada ah hadii 27 daqiiqo meelahaas ku qiyaasteeda ku aadaneed baa hal mar waxaan dareennay wax inay nagu wada dhacaan laakiin ma qiyaasi karin waxa dhacay waxay ahaayeen waqti dambe kadib waxaan ka war helnay anagoo isbitaal wada jiifno meeshaas waxa ku waayay saaxiibo badan iyo area-deeda intii fadhisay kuwii iga soo horjeeday kuwii ila fadhiyeen dhamaantood ay hal mar qofna kama uusan badbaadin alxamdulillah ilaahay ayaa ii qadaray inaan mar kale aniga caafimaadkayga aan helo qof walba wuxuu ku leeyahay shaqadan sidee ku bilaabaysaa adigoo culayskaas ku soo gaareen marna kama quusan doono insha Allah dhibaatooyinka dhacaya iyo waxyaalahaas mana noqon doonaan qof ay saameyso markan oo kaliyana ma aysan ahayn dhibaatooyinka iga soo gaaray anigoo waajibaadkayga shaqo gudanaya waa tiradii ka saddex ahayd 2013 bay ahayd markii cadawga ay isku dayeen inay dilaan May sanadkan gudihiisa ayadana waxay soo weerareen xarunta degmada oo aragtaan ayadana dhib ka soo gaaray shaqaale badan waxay nooga gaareen iyo dad loo adeegayay oo adiga marka insha Allah wadankan wuxuu u baahan yahay inaan nafta u horno dadku waxay ku leeyihiin maxaa la yiraahdaa inay ku niyad jabiyaan oo ku dhahaan intee Soomaaliya riskiga ka dhacayo gabar tahay sidana tahay way iska dhib badan tahay ka gabar ahaan waxa waay aad bay u dhib badan tahay markii aad rabto in community u shaqeysid maxaa la yiraahdaa maayarkaaga dhintay ana operation ka soo baxay lagu yiri maayarka uu dhintay oo markaas soo naaxay markaas hadana waxa waay xanuun kale taa igu sii dhacay hadana alxamdulillah maanta qalbigayga waxa waaye waa caadi skinkaas iyo wax yar yar oo igaara maahan nadiif ahay mana laga yaabo inaan maxaa la yiraahdaa oo niyad jabo waayo waxay u dhinteen waxay tahay dadkaas oo dhan oo close friend ahayn especially aniga aad a close friend oo ahayn intii dhimatay waxay ahaayeen dadkii igu dhawaay oo habeenii maalin aan wada cesho milix aheeno maxaa la yiraahdaa gooni ii taabanayeen dareenkooda laakiin ma noqon doonto inaan niyad jabo haddii aniga niyad jabo ayaga waxay ka shaqeynayeen oo ka wada shaqeynayeen oo saaxiibka ku ahaan meesha ka baxaysaa